soo dhawaada maanta halkan waxaan ku haysanaa kafeega iyo liin isku jirta sidoo uu habka ugu fudud oo caloosha iyo maxaa la dhahaa hilibka badan buurnaanta badan loo gooyo inta usii gudagelin oo arki doonteen hadda waa hordhac markaan sameynay waaye maxaa la dhahaa videogeeni insha Allah waa idin sii socon doontiin inta usii gudagelin subscribe sameeya baqiilaha noqon asxaabta qaaliga oo inoo sii kulanta wacan oo usii gudagelinaa habaha ka hordhac inaan dhihi lahaa dhammaysta videoga asxaab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga meel kasta joogtiin kusoo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka walaashin shukri aadan bule asxaabta qiimaha badan ee dhinaca wada nagala socda soo dhawaada indhahaaya waa maanta iyo maalin mowduuc cusub iyo topic cusub ayaan iska yara busy noqday maanta waxaan inagu hayaa topic aad iyo aad muhiim ah oo dad badan iga soo codsadeen inta usii gudagelin waxaan inaga codsanaya si xismad leh inaad subscribe sameysiin like garaysiin share garaysiin channelka iniga iska leh meel kasta adduunka joogtiin Soomaali weyn lacagna ma inagu ahaa waa free meesha la ku dhufanaysaa waa sii share garanaysaa topic-ina usii gudagelin maanta halkan waxaan ku haysanaa cafe oo ujeedin ما شاء الله تبارك الله كافيه تدا مقسنت كبدنا ويجعل هين وكو صباحدي انت قرعنا عبان عابين دورتينا 3 jeer maalinta ay cabaan wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan uu leeyahay in la iska badiyana ma fiicna caafimaad ahaan hadan ka hadlo dad oo qabtaa bijiro waana ku jiro groupkaas laakiin iska badina in dhihi lahaa maanta maxaan kan kusana liin hal xaba liin asxaabta qaaliga u jeedin qoobkana ay nitusi doonaa waxaan ku shubana maanta topic-in hawaaye kafeega iyo liindhanaanta faa'iidooyinka ku leeyihiin jirka bini'aadanka iyo waxtarka ku leeyihiin haddaan cabo maxaa ka helayaa waaye horta waxyaalo badan ayuu leeyahay faa'iidooyin ah inta aan sii gudagelin laakiin kafeega iyo liinta waxa hadda research ugu badnaa ee hadda la soo sheegay wuxuu noqday 2020 ilaa 2021 oo la soo research gareeyay wuxuu noqday wax ugu xoog badan oo qofka bini'aadanka cayilka iska gurido darteed in ay cayilan tahay aragtida inaad caataysid hadda waa maxaa la dhahaa researchkii ugu dambeeyay waaye gabdho badan ayaa soo cusbadeen oo dhan shukriya baa inoo sameeya aragnay soo dhawaaday inagoo mahadsan hal xaba liin aniga mis cadeynay runta inii sheego أنا جركي قان لصعبة أصحاب تقالية تذكر حق سمينا سومالي قبلي قصة صدنا وسمينا يا مركا هكذا حقو سنة حبض لين كورما عبايا سلادي أي عبيسة على شهادو إبرة هي هبينكي مركاسي حنيسيد لو يمكن صدح وينو أركي دونتا جركا إسبدل وين أياك أركي سعلول هدان ليدا هاي وحيالها خصوصا faa'iidooyin kale ee leeyihiin maxaa la dhahaa kafeega iyo liinta markay isku jirto waxa waa lahay hadaa tahay qof caateysan oo raba inuu hilib helo waxa labadan la isku cayna kula runta inii sheegaya waxa la dhahay appetite-ka ay qofka ku yareynaysa because dadka hilibka leh markay rabaan hilibka in iska gooyaan waxay rabaan wax appetite-ka ay maxaa la dhahaa appetite zaid qofka si burnaanaya kuwan appetite-ka ay ka yareynayaan that's why qofka marka dhaqso arkaysa inuu hilibka uga go'o la socdo saxab asxaabta qaaliga sida hore soo hadlay moodiska uu hagaajiya oo qofka improves moodiskiisa ayuu firfircooni iyo farxad ayuu ku yaraa waxa kale uu fiican yahay cholesterolka qofka waxa la yiraahdo caloosha buuran oo caloosha weyn ee dadka iska goyn waayeen rag iyo dumarba uu fiican tahay xoog weyn ayuu affect weyn lose ka goynaya dhaqso ayaa lahay waxa kale uu fiican yahay asxaabta qaaliga maxaa la dhahaa kafeega iyo liinta waxa la dhahay fiber ayay leedahay because liintana fiber ay leedahay kafeegana fiber ayuu leeyahay fiberka waxa laga wadaa waa cuntooyinka caloosha socodsiiya cunto kasta oo asxaabta qaaliga jirka ka goynaysa ama caloosha ka goynaysa waa laazim high fiber inay leedahay that's why marka cuntooyinkaas kale la isku caateeya cuntooyinka fiberka leh waa cuntooyin dadka buriya oo caloosha xas laga helo waaye laakiin cuntooyin hadaa artid ama sharaab ama sheex wuxuu ahaadaba waa caloosha goynay la soo cuntadaas fiber ayuu leedahay high fiber ayay leedahay labadaba caloosha that's why qofka dhaqsi hilibkiisa u jaraya cholesterol ama caloosha la gooyn waayo la dhahay oo qofka calool weyn maanta dhan leeyahay u dhahay caloosha meelan waxa jira inta kale oo caataysan calool lehna waa arkay yani waa yaabay la taylaa hatta kaasna way goysaa zaid ugu fiican tahay maanta halka waxaan ka hadlaynaa sida ugu dhaqsa badan ay isku ridaysid caloosha iyo jirka hada la tacaashay oo wax kasta sameysay wax kasta dadaal ay u baahan tahay asxaabta qaaliga maxaa laga rabaa weeye waxa laga rabaa hal xaba liin hadii qofka zaid u buuran yahay waa labadaas xaba liinta iyo koobkaaga biyaha markaas kafeegaaga ayaa ku shubanaysaa kafeega marka liinta kor hadda ugu miirahay ay kaaga daadanayso liinta gooni ayaan u miiraynaa marka liinta dhiyurta ayaan kafeega kor uga darinaa asxaabta qaaliga marka saas ayaan sameeynaa asxaabta qaaliga marka
كافيجا ويه إن كافيج عانها معها because عانها دا كدرت اللي أنا ويكلكو أساس كستاين لسعودة سو مركا إن فإذا إن كنت كولي هاي أنت إمكان كتك إنه إن علاش سيدو جويو إيو سيدا الأسبوعاتيو فإذا قلت واد وحال هاي كافيجا qofka moodkiisa iyo fikirkiisa ayuu farxad geliyaa oo uu bedelaa firfircooni badan ay waxyaalo badan ayuu ka dareemaysaa marka kafeega cabtid iyo liin dhanaantan ka hadlayaa sida asxaabta qaaliga waatan liin dhanaantii halkaan kusoo miiray halkeen xabo si fiican u fiiriya because hadhow hadaa kafeegi oo markaa kusoo shubtid hadaa dhahdid qora washa waxaan diidayaa lafalfahaas iyo xaskaaga daanaa kafeegeena waa kan kafeegaaga soo qaadanaysaa qof kasta isaga yaqaano inta ku shubto laakiin kafeega ha ahaado kafe oo maxaa la dhahaa oo madow aan ku inii sheegay ma noqon karo kafe oo cad oo shaah oo caano leh because ma noqon cad caanihii iyo maxaa la yiraahdaa caanihii iyo baashi ayaa kala go'aayo kafeegaaga inta qaada adaa ka sii sidaa ku shubanaysid dadka isku mid maaha qof waxba ku shubtaa soo biyahaagii kululaa soo qaadanaysaa siyaamo badan ayaa jiro dadka kale waxay haystaan qaar waxaa jiro qof kasta si gooni ayuu u hagaajistaa kafeegiisa sababta uu fudud inta waaye inay tusaya asxaabta qaaliga kafeegaaga waa kan kafeega waxaad samaysid liin dhanaantaada soo qaadanaysaa oo soo miiratay koraa uga daraysaa هل بداية ساس فدات كاس وأصحاب تقاليقة واسكو حانسا على شادو إبرة مركا صباح دي أسوق عديد حكوب أي كعبيسا iyo galabtii habeenkii markaas yaxanisid actually markaasna waxa laga rabaa inay cabtid intaas waayaba saas u fududahay marka waxa arkaysaa maxaa la dhahaa calooshii iyo wixii ku dhibaayo dhan oo dhaqso kaago ina arkaysaa aniga ma cabaay runta day inay sheego anigu u baahan inaan is aateeyo asxaab badan ayaa soo wareerisay oo meelahaas ka arkeen TikTok iyo ku dhahan please noo samee shukri inaan aragnaa rabnaa koobkaaga saas ku noqonaya marka oo dhamaysid hada koob weyn cabtid sida aad rabtid waaye kale liintan baa markaas ku darsanaysaa soo hadhow liintan xoog u yeelata hadii biyaha ka badan yihiin iyo haduu kafeega markaas uu badan yahay waa in liinta iyo kafeega ay qiyaastooda isla haadaan soo marka hadal badan xanu buuxiso maanta waa kafeega ka shidantay liin dhanaanta caloosha maxaa la dhahaa waxa kugu wareegsan oo dhan burnaantii oo intaas oo sani wax u weysay xal maanta waa kan la soo afjaraaya waa ninaho wax linaga hoowaye oo research ku dambeeyay la sameeyay 2021 ilaa hadda oo laga soo waxay waaye oo dadka hilibka ugu dhaqsaha badan gooysa waa kafeega iyo waxa way liin dhanaanta la isku daraayo soo asxaabta marka wax ka faa'iideen bakhiilin ha noqon dad badan oo waxa jira rabaan inay ogaadaan la sheegareeya meesha naga la socotin waa xarunta cuntada caafimaadka waa walaashi shukri aadan buule meel kasta joogtiin waxaan idhahayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh